su-aashan sheekh waxaa daba taala su-aashii maalmahan facebooka yaraha buuqa ka dhalisay ee taageerada maaragtay kooxaha ciyaara oo wadaadada kamid ah uu yidhi dadka taageero waa nooc maaragtay waa gaalo ama wax noocaas oo kale ah. waa su-aal kamid ah su-aalaha na soo gaaray oo leeyahay qofka muslimka ah ma gaaloobayaa haddii uu gaal ku jeclaada xirfad uu leeyahay darteed. waxyaabaha noocaas oo kale taageeridooda iyo muxuu ahay waa ya ima hadday macsiyo tahayna waa macsiyo, waxaad ku taageeraysa hadduu kufri yahayna kufri buu markaa gaari karaa. lama se itlaaqi karo, lama dhihi karayo ruuxii fanaaniinta iyo kooxahan ciyaara iyo ruuxii taageera ama koox ka mid a taageera waa gaaloobahaya, diintu ka baxaya, lama itlaaqi karayo. waxay ku xidhan tahay nooca taageeradu maxay tahay, waxay ku xidhan tahay waxa uu ku taageerayo maxay tahay. laano dad badani waxaa laga yaabaa inay isagaba taageersan yihiinba ama banooniga ay ciyaarayaan ama waxyaalaha dembiyada ay ku jiraan oo gaalnimo aan gaadhsiisnayn. marka wixii aan gaalnimo gaadhsiisnayn dadka laguma gaalaysiin karayo, oo waa in masalada tafsiil la geliyo oo la kala qaadqaado. waxaan filayaa su-aashan waxay daba socotaa hadal maalmo dhaweyto aada u wareegayo lalahaa nimankii ciyaartooy hebel iyo ciyaartooy hebel jeclaaday iyagana way gaaloobayaan oo gaal bay jeclaadeen. masaladaasi waa masalo khaldan wey, wadaadka fatwada uu fatwoodana baatil wey, waxba kama jiro. masalada jacaylku waxay qaadataa xukunka sababta. waxaa jira gaalo jacaylkoodu sharcigu uu ogol yahay, laakiin waa jacayl dabiici ah oon ahayn jacayl diineed. laakiin qofka haddaad ku jeclaato dembiga iyo macsiyadiisa, hadduu muslim yahayna waa dembaabi. hadday gaalnimada aad ku jeclaatana iyo diintiisana dee waad ku gaaloobi. sharcigu marka koowaad wuxuu baneeyey ninka muslimkii inuu guursado naag ahlulkitaab oo yuhuud ama kiristana. ilaahna wuxuu ku tilmaamay labada isguursanaysa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma, naxariis iyo kalgacayl buu ilaahay dhexdiina dhigay. ninka muslimkee loo ogolaa naag gaala inuu guursado ahlu kitaaba, xaaskiisa iyo naagtiisa inuu jeclaadana loo ogolaaday oo ilaahayba ka dhigay mawaddatan wa raxma. hadduu ku gaaloobayo wax lagu gaaloobaya looma ogolaadeen. waxaa labaadoo sharcigeenu faray waalidka in raxmad iyo dabacsanaan lagula dhaqmo. waalidka jacaylkiisa maxabada dabiiciga qof uu jecel yahayna waalidku gaalay noqon karaan. ilaahay baa yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufan. adduunyada si wanaagsan ugula saaxiib, macsiyaha ka yeelin, dee gaalnimana kuwa jeclaan maysid oo muslim baa tahay. laakiin waalidkii ila dad baa soo islaamaya oo waalidkood ay gaala yihiin, walaalahood gaala yihiin, qaar baa ilmahoodii gaalnimadii kaga harayaan. wixii xiriirinta raximtinimada ahaa iyo jacaylkii dabiiciga ahaa ee waalidnimo waa la ogol yahay sharciga, adigoon mid diineed ahayn. masaladuna waa masalatu lwalaa walbaraa. quluwiga lagu sameeya laga badbadiyana waxyaabaha aada u fara badan ee wax lagu gaaleeya wakhtigan dambe masaa'il ulxukmi iyo masaa'il ulwalaa baa ka mid a. walaha oo laga badbadiyana oo wax kasta oo sidan waa lagu gaaloobayaa la yidhaahdana asalkeedu waa madhabkii khawaarijta. ay dad saxaaba intay la kulmeen su-aal weydiiyaan qoladaa ma necba haddii la yidhahda ay ku dili jireen. saas darteed su-aashaasina jawaabteedu waa maya. qofka haddaad diintiisa ku jeclaato, diintiisuna aynan islaam ahayn, waad ku gaaloobaysaa haddii aan wax maanic oo kaa hor istaagoo kala jirin. jacaylka dabiiciga ah in inay naagta isjeclaadaan, laba isdhashayna isjeclaadaanen diin ahaynna laguma gaaloobo, wuu bannaan yahay. nusuusteeduna aad bay u fara badan tahay oo masaa'ilulwalaa walbaraa marka laga hadlayo ayaa looga hadlaa. intaasaan si kooban uga dhihi karaa. waxaana jiray muxaadaro silsilado 3 iyo ahaayo
alwalaa walbaraa aan kaga hadlay oon mas'aladan lafteeda dalaa'ilkeeda iyo faahfaahin badan ku sameeyey waana rajaynayaa haddaad needka ka raadisaan inaad ka helaysaan wabillahi towfiiq